waa nasiib darro in noloshaada ku dheelaan dhaqamada adigu bedeli karto, waana dhibaato kale inaad iska indhatirto dhinaca wanaagga. Saddex shay ayaan kaaga digayaa, saddex kalena waan kula dardaarmayaa. Number 1 waxaan kaaga digayaa ka walwalidda waxyaabaha la soo dhaafay, your past. Inaad ku noolaato xusuusaha waxa la soo dhaafay oo dhibaato lahaa ee aad xabsiga ugu jirto kuma keenaysa wax horumar ah. Iska daayo horumar waxay kugu sababayaan xusuusahaasi xun, hoos u dhac iyo liidanaan, iyo in dhibaato caafimaad noloshaada u keenaan. Energy-ga ha iskaga dhammayn ku mashquulka waxyaabahaasi, waxay ahaayeen wax markuu dhacay. Boorka iska jaf oo bilow nolol cusub iyo isbeddel wanaagsan, indhahaagana u jeedi mustaqbalka ballaaran ee ku ifaya. Qodobka labaad ee aan kaaga digayo, fikradaha taban ee naftaada. Iska ilaali fikradaha negative-ka ee naftaada ku siinayso. Mararka qaar waxa kugu soo dhacay fikrado xun oo ku oranaya mustaqbal ma jira, hakad gelinaya waxqabadkaaga. Ha is dhiibin markaa, naftaadana u sheeg in mustaqbalku qurux badan yahay. boqolkiiba 10 noloshaada waa waxa aad samayso, boqolkiiba 90 waa sida aad u qaadato. U qaado dhinaca wanaagsan, qaba hoglaha ku wanaagsan oo ha ka waaban halka uu horumarkaada ku jira. Qodobka saddexaad ee aan kaaga digayo, fikradaha dadka kale. Markaan leeyahay fikradaha dadka kale, macnaheedu ma ahan qof talaha ka qaadan, ee waxaan ula jeedaa mararka qaar waxaa dhaca in fikradaha dadka kale ay kaa niyad jabiyaan hamigaaga sare, oo ay ku yiraahdaan ma samayn kartid, way dhabadan yihiin, oo caajis iyo ciriiri kugu dhaliyaan. Haddaba waxaas ha u joojin gaariga oo noqo geesi hami sare leh, naftiisa hogaamin karo, hirgeli hawlahaada wanaagsan, noloshaada hadaf u yeel. Saddexda kale aan kula darmayo, 1 Allah ka cabso oo isaga ku xirnow, ka har wuxuu ka reebay oo fuli wuxuu ka amray, marka aad guulaysanaysaa insha Allah. Qodobka labaad, naftaada ku qanci inaad haysto markasta fursad Ingiriishaan oo opportunity. Waxaa loo soo gaabiyaa xarafka O. Yesterday oo kuma jirta, today hello way ku jirta, tomorrow saddex way ku jirta. Taa micnaheedu waxay tahay shalay wax fursad ah kuma dhaafin, maanta waxaad haystaa hal fursad oo ka faa'iideyso, berri waxaa jira fursado badan ee u diyaargarow. Qodobka saddexaad ee aan kula darmay, sabarka iyo dulqaadka. Shaqo kasta oo aad qabanayso waxay kaa doonaysaa samir iyo dulqaad. Sabarka iyo dulqaadka waa halka kaliya ee la isku dhaafay. Dhammaan dadka guulaystay ama guul gaaray waxa uu garab socday sabar iyo dulqaad. Safarada guusha dhammaantood waxa saayo u ah sabarka iyo dulqaadka. Adiguna noqo mid leh samir iyo dulqaad si aad u gaarto guul. Waxaan kuu rajaynayaa farxad, guul iyo barwaaqo.